iyadoo ay sii kululaanayso abaarta galaafatay xoolaha tirada badan ee ka taagan gobolada bariga Somaliland isla markaana ay halis ku jiraan dadka xoolo dhaqatada ee ku nool goboladaasi ayay maanta ku dhawaaqeen maamulka madaarka Burco guddiga dib u dhiska madaarkaasi iyo mas'uuliyiinta wasaaradda duulista hawadu in loo fasaxay xoolaha ay abaartu saameysay cawska iyo geedaha kale ee ku yaala gudaha xayndaabka garoonka diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada Burco waxaana isla maanta ku sugnaa garoonkaasi ari tiro badan oo laga keenay qaar ka mid ah deegaanada abaartu saameysay iyo xaafadaha magaalada Burco go'aankaasi ayay si weyn ugu riyaaqeen dadka xoolo dhaqatada ee ay abaartu ku habsatay waxaana la hadlay warbaahinta maamulaha madaarka Burco Cabdiraxmaan Yaasiin Axmed iyo gudoomiyaha guddiga dib u dhiska madaarkaasi Sheekh Cali Mawlid Maxamed Axmed sidoo kale qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ay xoolahoodu ku sugnaayeen madaarka ayaa ka mahad celiyay tallaabada ay qaaday wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Somaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa airportadu sideedaba dad iyo xoolo waa ka mamnuuc inay soo galaan ilaa iyo meelo macayina iyo dad macayina mooyaane taasoo lagu sababaynayo security-ga hase ahaatee sababtiinba waddankeena abaaro baahsan baa ka dhacay wasiirka wasaaradda duulista ayaa booqasho airportka ku soo maray wuxuu arkay dadyow soo tuban shibiga hareerihiisa oo xoolo wata gacantiisa ayuu intuu ku qaaday cawska halkaa qaar uga daadaadiyey markaa ayuuna faray haddii aanu nahay labada guddi airport committee iyo guddiga dib u dhiska kadib markii aanu kulankii samaynay waxaanu isla garanay inaanu u ogolaano wixii adhiga ahee jilicsanaan isagu meel gaadhaynin inaanu ku badbaadino dadka ilaah baa wax badbaadin karee adhigii ayaa loo fasaxay inuu madaarka gudihiisa wax ka cuno sababta keentayna waxa weeye dee waa tan wadankii abaar ay ka dhacday abaarta ka dhacday ummadda reer Somaliland waxay go'aansatay inay maaragtay si alla iyo sidii ay u kaalmeyn karayso xoolaha iyo dadka dhibaataysan inay caawiyaan caawimadii baanu hadaanu nahay airportka Burco iyo wasaaradda duulista guud ahaan maadaama hadda dhaqdhaqaaq fara badan oo airport ka jira oo san jirinin in loo ogolaado in ariga lagu soo daayo arigaas sababta loogu soo daayay waxa weeye oo xoolaha kale loogu sii deen waayay sida geel oo kale waxaa jira moosaskaas oo haddii hadhow geel uu ku tunto uu ku baabaayo airportkii taasoo ahaa Burco taasoo mas'uuliyiintu markay arkeen xaaladdu say tahay maalmo xoolo maartay ku sii yar noolaadaan sidoo kale waxaan ka soo qaanu ka imi bariga Sanaag taasoo aan keenay maartay ahmin ariga arafada iga haray aad baan uga nafisay wixii uu maartay cuni karaayay buu cunay waxaan ka guurnay fadhi xun waxaana la geeyay shaqondada togir baan ka tagnay toogii yara maxay xoolihii naf kama qaadin anigii iyo caruur yar waana laga soo qaaday in xayeesha oo ilaa 20 waxaana la keenay warshada hargaha garoonkii ayay noo fureen dawladda ee diyaaradda waanu ka raysanay xoolo waxsiintoodii iyo xayeeshkii duleedka noo taagnaa abaarta kulul ee ka taagan inta badan dalalka geeska Afrika ayaa lagu tilmaamay abaartii ugu xumayd ee muddo ku dhow qarni soo marta gobolka geeska Afrika Alidaar Maxamed Boos TV Universal Burco